qabto saddex qodob saddexdaas qodob oo kala ah horta ilaahay waa suu haya kale ilaahay dambi dhaaf ha noo sameeyo dhammaantayo ilaahay suu haya dambi dhaafo taasi waa qodobka labaad wuxuu yahay meeshaan waxaa ka jira baahi abaareed baahidaas abaareed oo aan u soo jeedinayno madaxda sharafta leh oo kala duwan oo meesha iskugu timid aan la wadaagayno iyo in Allah inta ka qayb qaadan kara baahidaas oo ah meeshaan waxaa deganaa dad awal abaarihii hore ay saameeyeen baa deegaan u ahaa deganaa waxaa ku soo barakacay intii 3 jibaarkeeda 4 jibaarkeeda ah oo ka yimid ilaa 4000 oo qoys baa ku soo barakacday waxaa marka meeshaas ka yimid culayskaas oo ceel la usan qaadi karin dadka meesha jooga dad ku filan ay sarahayn aan rabnaa marka inaan la wadaagno maantay martida meeshaan noogu timid inaan la wadaagno u sheegno ay ogaadaan xaalka iyo wuxuu ku sugan yahay iyo dhibka jira taasina waa qodobka kale wuxuu yahay maanta meeshaan la iskugu yimid waa Jilable wuxuu ka kooban yahay dad tuulooyinka geeska u ah maamulka Galmudug waa meel u jilicsan abaar haday tahay iyo amni haday tahay iyo caafimaad haday tahay waxbarashada inta ugu jilicsan anagu waxaan nahay dadkii ka soo guuray meesha la yiraahdo laan waalay iyo dhardhaar iyo wixii ka shisheeyay ka handhaali waxaanu nahay meeshaan 400 oo qoys iyo ka sii badan baan ku nimid waxaa kaloo soo marnay dadkii kale oo wadamada kale sii joogay baa na soo raacay adigu kulli 15,000 oo qoys ayaa maanta wadankan soo gashay anagu haddaan dhulkaan nimid oo nolol baad iyo biyo wixii aan doonaynay dadkii halkaan aan ugu nimid aad bay noo soo dhaweeyeen mahad ballan ilaahay ka gaarto madaxda sharafta leh iyo dawladda waxaan ka doonaynaa maanta gacan qabasho weyn wixii ay awoodaan inay dadkaas baad iyo biyo iyo talo iyo caqli ay la soo gaaraan anagu hadda waxaan sheeganaynaa wax ilaahay naga bixin kara weeye laakiin wax aadana bixin kara maaha laakiin wixii un kaalmaha la fidin karo iyo wixii qaylo dhaan loo diri karo iyo wixii wax la gaarsiin karo dhammaantood waxaan leenahay hay'adaha caalamiga ah la gaarsiiyo intaana madaxda sharafta leh waxaan leeyahay dadaal weyn ha sameeyeen ilaa meeshaan iyo ceelkii qaydare iyo ka sii shishay iyo gol waxaan maleenahay 3 maalmood baan dhex marayo umada taagan waxaa jirta meel qofka jooga naftiisa hadii la fiiriyo galaaska biyaha waxa laga baxshay caagad farsur habeen ma sheegaysaa inaan dambaabo mar shalay caagad 7 qaada baa $1 biyo leegis nafteeda ana soconay meel hadda loo jirta ilaa 180 kilomitir baantay waa ilaa 80 kilomitir jidad baantaynay $1 baa leegis caagad biyaha mana sheegaya been waxa weeye marka waxa la rabaa dadkaasi aad buu dhibaataysan yahay waqtiga dhaanka meel la aada male ceel mudug jiro halkan jooga waa ceelkan ilaa meel kasta oo laga joogana 100 kilomitir baa laga xiga umada meeshaas joogtana ilaa 15,000 oo qoys waa dhanta waxa gaarsiin kara way ilaahay xaqiisa laga gaarsiin kara ilaahay waa u keeni kara madar buu ama siin kara ama maslaxad qeyr qabto oo soo diri kara war ma dhimana war wixii la oran lahaa waa la yiri waxay u baahan tahay ilaahay in loo noqdo aan tooba keeno marka hore dabadeed ilaahay barino annaguna ay caawino qofkii waxili kara ama miyi ha joogo ama magaalaha joogo ama wadanka gudihiisa joogo ama dabad ha jiro annagu markaa isku ilaahay markuu wuxuu idin naxariisana markaa isku naxariisataan ilaahay wuxuu idin naxariisana markaa isku naxariisataan inaan annagu isku naxariisano oo isku garawna loo baahan yahay iskaashada islaamka jira waa askaan jiray ehel iyo qaraabaan iyo wad walaalaha idin eriya Soomaaliya iyo urka ka heshiiyeen mar iri muhiimadu waxay tahay baahida jirta way muuqataa aniga lafsiga dadka soo barakacay geediga ku yimid baan kamid ahay waliba waxaan watay xoolaha ugu nugul loo baan watay meel magaceeda la farda baqtiis oo fardu aan ugu baqtin yaan bay joogtaa saaka loo soo aroos wali qaar bacaalka imaan markaan waa 7 saac bar meelahaas maraysa saacadu oo wali sidka ku soo jira waxaana heerkaas gaarsiiyay caws la'aan dhulkii fogaaday xooliba wadan ku fariistay ilaahay baan caymin kara ilaahay baan baryaynaa waxaan ka baryaynaa waxaan kala soo aan u gudbinaynaa akhbaarta caawin ay u sameeyaan dadka intii tabartooda ilaahay sukay keenay baan ku shukrineynaa marka hore waxaan joognaa Jilable saakil halkii saaci barkii waan ka soo baxnay gaalkacyo caasimadda gobolka Mudug annagu waxaan nahay ilaahay baa waxaya ilaahay baan wax weydiisanaynaa marka hore abaar iyo aaran ba ilaahay baan ku xamdinaynaa ilaahay ha naga bixiyo wixii dhibaato ah dadka inay tabaalaysan yihiin oo meel walba sida ay yihiin waa la soconaa tala wadaag gobolka Mudug annagoo maamulka
qaybo kala mida aan kula soconno waxay soo martay dhul tiro badan oo ay ka mid tahay ceeldibir iyo budbud iyo muxuu ahaa galgalad iyo dhulkasii tiro badan horena waxay siiyan jirtay shaqakasii tiro badan waxaan rabnaa marka jaaliyadaha iyo dowladdaba waxaan ka codsanaynaa dadkan ilaahay baa ku filan wixii meeshaas ka dhaca ama meeshaa ku yimaadaa waa wax ilaahay xukunka ku dhacay baryada ilaahay baan u barya tegaynaa wixii aan annagu tabarteennu tahay ama tabaro jaaliyad tahana laga hagran maayo soo dhowaada niyaddiinna dhista qalbigiinna ha fiicnaado wax alle wixii laydii awoodo ama walaal dibad jira oo jaaliyaduhu ay ka mid yihiin oo walaal ka mid yahay ama dowladu ay ka mid tahay wax laydinka hagranaya ma jiraan shaqsigii wax bixinaya iyo nidaamkii wax lagu bixinayana maantay intaasu daraaddiina usoo istaag dadkaas tabaalaysan bay usoo istaageen waxba ka hagran maayaan hadday wasiir tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday jaaliyad tahay waa ku wada soconnaa dadkaana waa dad hel ah waxaan u nimid dadkaas inaan soo booqanno tabaalaysan idin soo sahmino dadka iyo dadka dibadaha jira oo dhashay iyo dawladda wax alla wixii caalamka inaan u sheegno oo niraahno walaalihiin waa kuwaasa maanta waxaad ku sugan yihiin waxaa meeshaan ka jirta meeshaan waxaa la yidhaha Jaloble meeshaan Jaloble ceelkaas matoorku saaran yahay oo isaguna waqti kuleyl isaga jiro biyihiisu ay yiri xooluhuna ay ka bateen dadkii abaaraysnaan meel kasta uu isaga yimid meesha ceel iyo cashin ugu sukaysaana ay carro kala fog ay tahay sida hadda Jaloble Hilaale Falaweere Hindawaco carro guduudsho xana wargaan baash leeyahay daasadaale wadankaas oo waa wadan oo leeyahay biyana meeshaan u ah dadkuna waa abaar baa haysa badar laan baa haysa biyo laan baa haysa dadka jaariyada iyo dadka dibadda iyo dadka muslimiinta dhamaantood waxaan ka codsanaynaa dadkaas abaartu hayso oo biyo laantu hayso oo baal laantu hayso in loo gurmado oo loo gargaaro haday biyo tahay haday raashin tahay haday wax kasta tahay Ali Diini waxaa Ali gaas baa leeyahay oo kunool deegaanka degmadiisu ay tahay deegaanka ka soo guuray oo ka soo abaartu ka soo qaawaday deegaanka balkii Badar Qaali oo dadkii qaar hadii la ku yahay suguuri waayay wasoo kacay qaarna hadii la ku yahay hadda uu ku sugan yahay ilaa dulweyn hadii la ku yahay aad iyo aad baahi biyood iyo baahi hadii la ku yahay dad intaba ay jidho dunyada iyo dadka labaduba ay jidho oo mataqaanay hadii la ku yahay aad iyo aad dadku u doqonsan yahay sheegad la qaadi waayay oo aan adimadooda ku soconayn oo tushogayo baan hadda qooxda lagu soo kacnay oo hadii la ku aad iyo aad u baahan xanuun u baahan u dileen baahina u dileen dadkii la joogay ayaguba dadkuna hadii la ku yahay halka xoolaha wada laftooda ayagu laftooda xoolihii ma ayilin ku filan ma helin waxaan diir madoow hadda mataqaanay ummadda isaga badatay baan ugu tagnay ilaahay mahadiis hadda ilaahay baa mahad iska leh oo mahadaas u sugnaatay aadan ahaantiisa waxa weeye walaalaha waxaan mataqaanay jaariyadaha iyo walaalaha Soomaaliyeed iyo hadii la ku yahay qaaysahan hadii la ku yahay jaariyadaha dadka nala dhashay oo jaariyadaha iyo ummadda Soomaaliyeed intaba waxaan ka doonaynaa inay mataqaanay hadee il rahmad leh nagu fiiriyaan dadka iyo dunyada intaba aad bay u doqonsan yihiin وميل جود قف الحمار عمل ما ركتي قف الحمار عمل الله سلاس انتي لو غلو قف كسنتي لغليو قونتي لغليو قف وعلها laga daba tuuro buubiyaha ka soo dhuraya markaas nin qofkii laga soo bixi la soo jiida qofkii marnaanka markii la keeno aka bacti gaamni la soo jiidaya masalan marnaan waxaas laga cabaya hadaa biibnaanka biyo saxma waa dhiiqo والله حالده انت انا اركيي حالتك waxaan waliba ma wixii awrsi socotay isaga lagu waxayna waa wiil ilaa xalay ku jireen miya markaas ilaa xalay dhan la qufay waxaan hadda meesha awrtan iyada u taagay u taagay oo lagu qufaya oo waxa la rabaa ilaa biyaas laga soo meero oo qof intii la galiya ilaa xarig loo qabana xaggaas u sii baxay qof hadda waxa jira dad jaaliyada deegaankan u dhashay oo leeyahay tala wadaag oo raba hadda inay biyo dhaamin deegaanka ka sameeyaan markaas jaaliyadaas aduguna wala hadlaysan wala hadlay xaaladda halkan ka jirta waligeey mid lamida ma arag waxaan ceel ma aha
وقبر تصور قد كسل قلي ولا سيقلي ولا سيجا بتحرق على سيجا ولا في والله ما أرتاد هذه ما يبي حرق أنا قف حرق لو وحده يا نقول قول كذا يا حق سيدو قف حرق لو وحده الشلو سيجو قولنا قف كان حرق لو هنا يا ساس الله هنا ما نعمل بهلا كجرا حديد دور بهلا كجرا حلقة كجرا ساس قف حرق كله حتى ما مغليس مركو محل لقى دامنا بريق ما لقى دامنا markaas jaaliyada tala wadaag meel kastay joogaan dadkeeni wakaas meelaba meesha ka aan tagno ka sii cuqubo badan tahay meeshaas ugu cuqubo badan meeshaas ayaa qofkaas laga dhaamiyay kuuna daafil laga dhaamiyay waxa ku jiraan waxaan mooday biyo laakiin hadda biyo ma jiraanba biyo ma aha markaas jaaliyad tala wadaag la yiraahdo jirta oo deegaanadan u dhalatay deegaanada kulli markaas maxaad ka codsanaysiin oo idinku muhiimsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لما أنت هرت ومهصنتهاي هرت ضدكاني رفال وحو كتير أنت أصلا كتير وحن عيل وهذا ضدك شيء زي الضمنال أو ودن كوتشو أو هالكرا هذا ما قرأت وهكردين بقولك بس عشان وهكردين بقولك بس عشان وهكردين أنك وحن قعد صرنا dadkii hore waa tagay wixii dhiban lahaa waa dhinteen wixii rafaadi lahaa waa rafaadeen waxaan ka codsanaynaa wixii naga naxaya oo dalka u dhashay oo dadka u dhashay oo naga naxaya waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa wax noo qabtaa oo biyo noo dhaashaan oo matoor noo mudaan oo dadna kor jooga dawaana keenaan dadka habeen walba ilmuhu baktiga waxaas intay cabaan ba iska shumayaan ilmuhu waa iska kala miirmaya gaariga kaalka intee soo socod kaalka saacadahan soo socon ساعة ولا واي كنا قارقان ساكن صباح بعدين أيه قفك التبعان كوشون ما يمتقى عرب تشوتشين هاي ما تشوتشين إنه كان حلقيني كور وقاري ركاب كلا صار كور هذا كان أركيني قاربة واحد سيس عنا لبنا مع الموت لبنا سوس لبنا سيس عجبني وعودي تعالوش بيها قصيرتي وبيه كبحين حلقيني ماشي ما قرأت ولا دبعتوا قبتين دبعتوا قبنا بقول كذا سجابسن كربلا صرت الله نقفل ذكره إلهي قال خابر نقفل ذكره لكن سنقول عصرنا هدو قاعد شرو دي دك لجنا حيو دي دك لجنا حيو نقول عصرنا الدين كرت عرف كهرت عنا العنا يعيش ضعف كالجسن وبيا كدر هرد متجا وحكي ترى متجا هذا متجا وحرتنا حقوق بد هذيك هذا سؤال دينا كبتارتا وح بيا كدر العالم متجا دك كان وحب باي قبورها سوتش دك الضم بيها سعدي أكو بابي كون يا لكن أروح أنا حالتنا هرت ويقول صبتها لكن وحن كيا بنا هاي dadka deegaankan u dhashay oo og waxaan ongoligood laga maqlay xaasad weeye aniga maanta igu horeysa waxaan xaasad weeye xaasad anaga ku sheegayna xaasad weeye dalkooda inay wax u qabtaan marba arrin murugale wallahi arrin murugale wuxuu la waalay intaas oo sano bay ku soo jireen ninka halka telefoonkaas oo ku hadlaysa ma ujeedaa rafaadka waa ku dhash wadanku joog jira waa ku dhash ma garat intaas rafaadkaas ku jira hoogaas ku jira baas ku jira ragoodna wala madaxweyne kalkay wada fadhiya oo hadli maayaan meel walba matoor baa laga wada meel walba qaylo dhaan baa jirta meel walba waa waray baa jirta meel walba dadku qof waa wardaya eelkan iyo dalkan waxa jooga wax u hadlama male waa dadansan waa arab luga oo lagu rafaa lagu dandaro wallahi laba adduun saddex adduunyo galka ayaa ku jooga war idin ma hayaan kuwa dibaduna war idin ma hayaan waayo laakiin waxa anu ka yaabanahay dadka waxaan og ongoligood sheegin taas muruga taas dalkooda wuxuu qaban maayaa nin walba cabsadiisa naftiisu dalkooda inay wax u qabtaan ma rabaan ceelka laga mudo soo martaan wadadiisa waa ku soo marteen bitaal iyo buka sokeeya motor meel gees mudo ma aragteen jid ma ku soo marteen bitaale iyo ceelka cilmi dhaxayn ma taqaana bitaale iyo ceelka sida cilmi dhaxayn ceel kale wadaan loo rido ma jiro oo la karo ما جرو مطوركاس اللي هو عاوي أمرك دم اللون أنت ماشان عيل ما هو عيل ما عيل كان مقلة شري عيل كان أرك شري ماها ماشان لكن مركل عيل بيلاده هاي واقعية ماشان عيل ما هو وعيل ما هن الكبر كسر يا شباب بس سوسة 4 ساعة 4 ساعة ها سوسة ها 4 وتسع عناصر ها deegaan kamid deegaanta mise meel fog baad ka timid xaggaas waa kan meel fog waa kan wada fog waa kan magaciis xaggaas Jilhayri magaciis Jilhayri waa kan dhinaca roob baad u soo raacday haa caaw sii dhalmo caaw ku sii dhalmo haye
سكر maxaad ka codsanaysaan jeeliyadii dadka wax ka soo noqon matoor ha matoor hadii la sii weyd ka yaraanaysa dhibaatada ana yaraasa aan ku xana yaraa laakiin hadda ratiga wadatay caag kaliya ku saaran dhowr caagag badan maxaad u soo dhaansan weyd intu qaada intaas kaliya qaada ha intu qaada wax ka badan ma qaado maratiga labadaas caag kaliya qaada ha wax ka badan 6 iyo 4 iyo ma qaado waagi hore 4 haamood baa la saari jiray marka naafiya yaraaday naafiga yaraaday marka xoolaha soo yaraaday waad mahadsantahay